waddankeeba dunida ugu amniga badan sanadkan 2026 ma is weydiisay wadamada aysan boolisku qoryaha qaadan dadkuna ay albaabadooda furan kaga tagaan iyagoo cabsi aan dareemin. maanta waxaan idin soo bandhigaynaa 5 dal ee ugu amniga badan caalamka kuwaas oo kaalmo ku galay nidaamka sharciga, xasiloonida siyaasadeed iyo kalsoonida bulshada. daawila dhamaadka si aad u ogaato dalka sanadkan calanka u sida amniga dunida. kaalinta shanaad waxaa galay wadanka Singapore, nidaamka iyo sharciga aan gorgortanka lahayn. Singapore waa dalka ugu amniga badan qaaradda Aasiya. guusha amnigeedu waxay ku timid shuruuc aad u adag oo laga fuliyo dalka oo dhan. nidaamka sharciga ah ee kaamirooyinka surveillance oo meel kasta daboola waa mid ka mid ah meelaha ugu dambida yar dunida, gaar ahaan dhinaca xatooyada iyo rabshadaha jidka. dalka kaalinta afraad ku jira waa New Zealand, nabadda iyo fogaanshaha colaadaha. New Zealand waxay caan ku tahay inay tahay dalka go'aan dunida inteeda kale kana fog colaadaha caalamiga. wadankan waxa uu leeyahay nidaam dimuqraadi ah oo aad u degan iyo bulsho isku duuban. heerarka dambiyada hubeysan aad bay u yar yihiin, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah meelaha ugu fiican ee caruurtu lagu koriyo. dalka kaalinta saddexaad ku jira waa Ireland, dhexdhexaadnimada iyo kalsoonida. Ireland waxay darajooyinka amniga kor ugu soo kacday sanadihii ugu dambeeyay. waxay caan ku tahay inay tahay dal neutral ah oo aan ku jirin loolanka ciidanka ee adduunka. kalsoonida reer Ireland ay isku qabaan iyo soo dhaweynta dadka ajnabiga ah ayaa ka dhigtay mid ka mid ah wadamada ugu degan qaaradda Yurub. wadanka kaalinta labaad uga jira liiskan waa wadanka Denmark, xasiloonida bulshada ee mucjisada ah. Denmark waa dal uu amnigooda ku dhisan yahay kalsooni. waxaa wax iska caadi ah inaad aragto caruur yaryar oo banaanka dukaamada lagu daadiyay iyagoo jiifa, waalidiintuna ay gudaha wax ka iibsanayaan. ma jiro farqi weyn u dhaxeeya taajirka iyo faqiirka, taas oo keentay in dhibaatada bulshada iyo dambiyadu aad u yaraadaan. dalka kaalinta koowaad fadhiya ahna dalka ugu amni badan adduunka sanadan 2026 waa wadanka Iceland. boqortooyada nabadda ee dunida, Iceland waxay difaacatay booskeeda koowaad tan iyo sanadkii 2008. waa dalka kaliya ee adduunka kamid ah ee booliskiisu aysan qaadan qoryaha markay roondada ku jiraan. ma lahan ciidan military ah, dambiyada ka dhacan waa kuwa aad u yaryar, mararka qaar aan la maqalba. Iceland ma ahan kaliya dal nabad ah ee waa dalka ugu xasiloon dhinaca siyaasadda iyo bulshada adduunka oo dhan. adiga wadankee kugu muuqda inuu yahay wadanka ugu nabadda badan adduunka sanadkan 2026? noo reeb ra'yigaaga qaybta faalada. haddii aad ka heshay video fadlan like, saaxiibadan u share garay si ay u ogaadaan xogtan. mahadsanid.